magaalada Gothenburg waxaan filayaa bulshada inteeda ballaareed inuu la kulmay Professor Badiou maalintii Jimcada ahayd asaahate kulankan wuxuu ahaa kulan kooban oo gudoomiyaha professorka iyo bulshada asalkeedu ka soo jeeda Puntland isku bartaan muxuu ahaa talo iyo maaragtay waayo-aragnimada ay kala qaataan Professor Badiou ku soo dhawo magaalada Gothenburg oo ah caasimadda labaad ee dalka Sweden sida حقيقة وحكون الصومالي أبو بدن إلا طبعا كل جاريسو بدي اللي حلا وتكسر بدي بيسنا كنا ولا ضد بدن وما رتبط كان بدي كنا ولا يجرو وعن هذه وحيسيننا بدال كذا سياسيين وما رتي سنة ضد ضد كوجستي في الصومالي يوجد دكتور مرحلة عندك إيمان كوجستو bulshada reer Puntland waxaan ognahay inaad xiriir fiican la leedahay markii aadan siyaasadda ku jirin oo aad tahay professor ama macallin aad tahay shaqooyin badan oo dhinaca tacliinta inaad ka qabatay aad baan u rajaynayaa fursad u helno in adigoo dalka hogaamiyo inaad na soo booqato marlaba waxaan u maleynayaa kulankeena waa kulan aan caadi ahayn u baahan isbarasho البروفيسور وحوبها هي وحي طريقة تصارينا وحي فكرة وحو أدوك أمريا إنه معركة عقلية وناكسر وبشر الصومالية وحدها كنول إنه أوروريو الكوميونتي هم كنول وكونتران وكوميونتي حوجن إلا معركة جالية أهان وحندسنا مدة 6 سنوات وحنقف وشغلنا الرماها برشدة ودلكنا يعني كشغلنا محايا لتلقى معركة برشدين ويدلكنا كجرو وحلاقة قطو إسلا مركنا وهي أود لنا عن دلك سوماليا شقائيا كخضرنا أدبان في سنينا إن دلك سوماليا ونقضى ودن دقل ونبط الديمقراطية ودلو وناك كجرتو أدبان في سنينا وعروفتنا في سنينا إسلو دلال كسكو جستنا قيمة وين هي أكتادة كلها لهاي سوطة سيانا كاسينا عمان تقلقلنو كل جيسنو وهي تلانا عن كوكو بيرنو مركا وحنو مالينا يا أضيال تربضان إنه dad aqoon-yahaniin ay ka dambeeyo laakiin wuxuu kugu soo dhaweynayaa gacmo furan ilaa ku soo dhawaato magaalada Gothenburg soo dhawo kelmadaha soo dhaweynta ka bacdi waxaanu siinaynaa kelmadiisa inuu halkan ka yiraaho isimada kamida maartay Yurub oo ligaho Iman Abdulqaadir ku soo dhawo kelmadaadi maartay muxuu ahaa بسم الله الحمد لله شكر لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله waxaan salaamahayaa halkan dadka isugu yimid oo muxuu ahayd reer Puntland oo ay hogaaminayso jaariyadda Puntland baan halkan ka salaamayaa odayaashooda aqoon-yahanadooda waxgaradkooda gabdhahooda dhammaantood waan salaamayaa xafladda ay soo qabanqaabiyeenna waa uga mahadcelinayaa inta ka bacdi waxaan soo dhaweynaynaa Professor Cabdiraxmaan oo dadkani ay wada garanayaan baan waxaan soo dhaweynaynaa markii labaad si gaar ahaaneed inagoo ah reer Puntland waxaan ku matalayaa codkayga isinimo reer Puntland baan ku matalayaa waxa weeye jaariyadda shirka ayada soo qabanqaabisay isim ahaan ayaan u matalayaa reer Puntland waxa weeye shirka soo qabanqaabiseen aad iyo aad baad ugu mahadsantihiin marka xigta waxaan ku soo dhaweynayaa markii labaad soo dhaweynta ahayd Professor Cabdiraxmaan Badiou baan ku soo dhaweynayaa waxaan ku soo dhaweynayaa salaanta islaamka waxaan ku soo dhaweynayaa aqoon-yahanimadiisa waxaan ku soo dhaweynayaa inaanu yacnaha aan u wadno inuu insha Allah madaxweyne u ka noqdo Soomaaliya oo dhan waxaan kaloo ku soo dhaweynaynaa Puntland iyo Brandir waxaan ka dhaxayn jiray dadka badankiis waa la wada socdaan si gaar ahaaneed xiriir baa ka dhaxayn jiray xiriirkii waa ku soo dhaweynaynaa waxaanu ilaawi karnay waxaanu ilowsanahay midna ma ahan waxaana weeye cid wanaajisana waa la helayaa cid wax ka khaladana waa la helayaa weligeedana adduunku sida ahaan jiray annagu marka waxaanu rabnaa
puntland iyo baraandir xiriirkii ka dhexayn jiray oo gaar ahaaneed meeshiisi inaan ka wadno kana hayno kana ambaqaadno brofesor cabdiraxmaanna waxaan ognahay midnimo qaran xisbiga la yidhaahdo inuu hogaaminayo inuuna u wado soomaaliya inuu ku mideeyo waxaana markhaanti fur u ah nin waliba haddii uu gobol yacnaha isku koobo waa aragtidiisa ninkii tuulo isku koobo waa aragtidiisa ninkii soomaaliya oo dhan u socdana waa aragtidiisa laakiin annagu waxaan isgarab taagaynaa ciddii soomaaliya oo dhan midaynaysa oo u socota xisbiga midnimo qaran annaga wuxuu noogu jahaysan yahay oo noogu muuqdaa inuu u socdo soomaaliya oo dhan inuusan gobol ahayn inuusan tuulo ahayn inuusan reer ahayn laakiin soomaaliya inuu u soo cesho waddadii hore oo soomaaliya waxaana ragga aan ka sugayno brofesor cabdiraxmaan baa ka mid ah waxaana weeye waana ku garab taaganahay ilaahayana waxaanu uga baryaynaa inuu ku guuleeyo markhaanti furna waxaa u ah markaanu ka daawanaynay meesha la yidhaahdo qardho muxuu ahayde jubbaland muqdisho garoowe waxaa markhaanti furu ah intaas ninka ka muuqanahaya inuu soomaali doonahayo inuusan gobolna joogin tuulana joogin reerna u joogin nin soomaaliya u jooga oo u shaqaynahaya inuu yahay markhaanti fur bay u noqonaysaa waxaan ku soo dhaweynayno waxyaalahaasaa ka mid ah dad badan baa meesha noogu yimid wadajir iyo gaar ahaaneed uma aanaan soo dhaweyn runta markii laga hadlo hadalkaaga waa lagu noqnoqdaa hadduu hadal sax yahay shalayna sidaasaan u dhigay waxaa weeye marka sidaasaan ku soo dhaweynaa brofesorku suul fara kuma jiraa soomaalidu mahmaada nooguma jira siyaasiyiinta waa nooga duganya waxaa weeye hadalkiiyo ila taraarixin waa mahadsantihiin soo dhaweynta كبعد وحرب لها إن شاء الله أنا بسال وياه بروفيسور عبد الرحمن باديو وأنا مركي إلى بعد أو وبسال وينيو runtii waxaa dhihi lahaa aniga iyo dhallinyaradana Gothenburg fursad waxaa u leeyahay inaan professorka ku soo dhaweyno jimcadii xafiiskaygii sida dhallinyarada magaalada Göteborg u ka faa'iideysan karaan iyo sida professorka xataa uga faa'iideysan karo dhallinyarada Göteborg aad iyo aadna ku mahadsantahay xafiiskeena nagu soo booqatay runtii ummadda waxaa la dhahaa qofka marka lagu taageerayo saddex waxaa lagu taageeraa waxaa fikrada qofku qabo hamiga qofku leeyahay iyo wax qabadkiisa aniga hadda saddex maalmood professorka wax qabadkiisa waa la socday fikirkiisa loo jara dhageystay hamiguna leeyahayna waa maqlay ari saddexaas waxna aan ku soo dhaweynay oo aan ku taageeraya professorka Cabdiraxmaan dhinaca hadda dhihi lahaa runtii ururka iyo siyaasadda ururka magaciisa waxaa waaye midnimo qaran runtii waxaa dhihi karaa Göteborg doorashadii hadda la soo dhaafay runtii waxaa ummadda Göteborg u staagtay si midnimo ah runtii Soomaalida waxaa laga haystay runtii musuur foolxun waxaa lagu magacaabi jiray dad ma shaqaystayaal wax walba ah runtii waxaa dhihi lahaa sanadkan dad badan gacan ka dhiibteen si fiican uga muuqan bulshada qaas ahaan siyaasadda biladaasna runtii waxaa le dhalinyaro badan odayaasha dumarka Soomaaliyeynta magaalada soo runtii waxaa dhihi lahaa midnimadaas oo anagoo dhan nastusnay kalsooninidaas ha lagu sii wado ana lagu taageero professorka fikirku qabo insha Allah waxaa aaminsanahay fikirkaasna wuxuu mideyn karaa Soomaaliya guud dhinaca shakhsiyan aniga hadda ka hadlo جارو حواه حزب يعني مثله وسوسيال ديمقراطنا حزب السويدن وين وقلنا تاريخ وين وحول بودنا عيجا فرصة أقول هذا أنا كنت هاجر حزبك أنا كنت هاجر بروفيسورك ونوجو فائدة وضن كي هو إن شاء الله أنا أقول ديرارة وحقول يا بروفيسور كسر لهم الله بعد إن شاء الله كلهم كانوا كلهم كي كواد وصار كانوا وحنا فيلي إن شاء الله سوى دجر أنا قلنا جعان كلي بنسبة الكسومال إن شاء الله
marka koowaad waxaan u mahadcelinaynaa jaaliyadda Puntland Community Organization oo caawa casho sharaftan qaaliga u samaysay nin runtii mudan in la soo dhaweeyo khayr ilaahay idin siiyo marka labaad mudane cabdiraxmaan kusoo dhawow marka saddexaadkeena is aragnay weeyaan waa ku kulanay xafiiska maxamuud salaad waqtibaadkiisa dhalinyarta hamar kulan waan isku aragnay caawa inaan halkan isku aragnayna waxay noo tahay kulankaaga lagama xiisa dhacayo wax badan baad kolley aniga shakhsiyan aad igu kordhisay marka xigana waxaanu rajaynaynaa adigoo xilkaa aad u tirtamaysid noqday oo madaxweyne ii ah aniga iyo inta halka fadhiday ummadda Soomaaliyeed inaan ku aragno hadduu alla idmo intaa kadib in badan bay Soomaalidu waxay tidhaahdaa niman gaala wadan ama galbeed wadan ama dawlad wadan dunyada imika Soomaaliya xil kama qabto nin midnimo qaran wato ummadda Soomaaliyeed wadato oo sidaa uu sheegay isimku intaasoo degmo kala duwan oo Soomaaliyeed taageersan tahay oo noo noqdo madaxweyne waxay noqonaysaa inaynu helno madaxweyne ay ummadda Soomaaliyeed doonayso nidaamka xisaabta badan ee la furfurayna wuxuu furfurayaa ummaddu isdhex gelinayaayo wuxuu maaragtay waxay wadaagaan buu wada jir u qabsadaan ayuu furfurayaa marka anigu laba kalmadood baan ku oranayaa Abdulli Maxamed Ali Gaas baa halkan noogu yimid isagoo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya markaa xilkii soo dhigayo damac siyaasadeed aan ka muuqdo marka ragga go'aanin oo fara badan baa meesha isugu yimid nin baa wuxuu ku yidhaa ka quusan qarankana mar baad qaban hoggaankiisa nin anna waxaan ku yidhi way iman dharaara dhulkaadu talisay cabdi oo dhismaha qaran oo howdhigiyo hortii waanu ku leenahay oo waxqabadku kuma xidhna qofku inuu madaxweyne u noqdee adoo intaa ummadda Soomaaliyeed u shaqeynayo iskuulaadkeedii waxbarashadeeda u shaqeynay waxay ahayd maaragtay ummadda xil baad u haysaa intaad mas'uuliyad u tahay intaad madax u tahay bartii baad kasii wadaysaa barnaamijka waana ognahay inaad wadaysid ilaahayna waxaan ka rajaynaynaa inuu ajar iyo xasanaad kuu siiyo marka waxaan leeyahay haddii ay ku doortaan dadku dhibaata haysata oo kala fidisan yahay haddii ay ku doortaan ama duur lagu xidho ama daayin kugu simo haysoran darmaanta daranayso xoorka iyo dambarka iyo caanaha doobiga oo culo kaliya iyadoo dadkeedii aan qaar dad loo shigin waxaan uga dan leeyahay hooyada darmaanta ee dilay bacad kulayluhu ee la fadhida dambiil suuq shilin dulaca laga furay damacyaanu kaa geli dadku waa ul iyo diir deersi hele weeyaan waanay kala diyoobeen haddii ay ku doortaan ama daayin kugu simaan ama duub lagu xidho isku duubnidoodii dib u soo egleelaha damalweyne hoostii darin fidiyaha noqon baa kitaabka diiwaanka lagu qoro insha Allah warajeenna inaad madaxweyne waxaan halkan ku soo dhaweynaynaa oo aan salaamaynaa Professor Cabdiraxmaan Baadiyo oo ah nin qiimo weyn leh sababtoo ah waa ninka doorka wanaagsan ka ciyaaray intii burburkii uu dhacay kadib wadanka waxbarashada muhiimadda ugu weyn oo hadda aanu aad ugu faraxsanahay waa xagga waxbarashada qiimaha weyn oo uu siiyay isla markaana uu ka furay magaalada Muqdisho jaamacadda ugu weyn isla markaana uu farac ka mid ah Puntland ka furay waxaanan ku mahadinaynaa waxbarashada iyo dadka dhan uu soo aflixiyay waa wax weyn wax ciyaara ma mahad weyn taas teeda kale waxaan ku hambalyeynaa xagga siyaasi ahaanta marka uu xisbi midnimo qaran sameeyay midnimada qaran waa qaali waa wax weyn waa waxaan sugaynay kelmadaas laakiin waxaan jeclaanahay inay kelmadaas waa bilaabatay ay ku dhamaato waxaan u rajaynaynaa khayr ujeedo kasta uu leeyahay ninka waanu soo dhaweynay waananu riyaaqnay qiimo weyn baana uu leeyahay dadkana wuu ka duwan yahay ummadda Soomaaliyeed wuu uga duwan yahay marakan waxaan rajaynaynaa sida uu ku bilaabay hawshiisa inay ugu socoto meel wanaagsan ilaahay geeyo oo maamulkiisa iyo wax uu doonayo ilaahay ha u sahlo anaguna waan soo dhaweynaynaa dhammaantiin waxaan salaameynaa martida sharafta leh oo xalfaddaa soo samaysay dadka aad u mataqaanaa wanaagsan
dumar iyo rag baa aad u mahadsan yihiin waxaan kaloo salaameynaa madaxweynaha mustaqbalka doctor cabdiraxmaan baadiyo waxaan kaloo yani ilaahay ka baryaynaa waa nin muwaadinan oo soomaali ah oo gob ah oo taariikhi ah oo wadani ah annagu asaga ka aragnay 22 kacaanka nin soomaaliyahoo waxa ilaahay rabaa ummadda rabto hoggaan waa ninkaas arag marka ha loo soo duceeyo ninkaas ilaahay inuu madaxweyne soomaali uga dhigo ilaahayna waxaan ka baryaynaa inuu soomaali noqdo annaga halkaan joogno mataqaana soomaalidaana yani annagaa nala ka rabaa inaan midnimadeennii iyo soomaalinimadeennii iyo qadiyadeena iyo sharafkeenna aan suuranno waa la oran reereeda halkaa taagan ruwaaya dhulahaya iyo halkaa waxaa taagan magaciisa marka anaga waajibka aan leenahay raggeena hadda meeshaan sameeyey oo ama jahliyaadka ah ama orgaamada ah waa inaan ka shaqeyno midnimada soomaaliyeed waa inaan ka shaqeynaa qarannimadeena waa inaan ka shaqeynaa cadaalad haddaan qaran soomaali helinaa waxa la helayo oo yaalla ma jiro kuwa hortaagana waxaa rabaa barnaamij sawanib dadka la yimaado ninka hadda madaxweyne wey asaga wuxuu leeyahay laakiin anaga lafteenu waddanka aan joogno waa inaan ka keennaa wax asal ummadda isku xirro ummadda loo jiro qofka qaldan la soco marka aad baad mahadsan tihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu gunaanadkii baan soo gaarnay iyo khudbadii iyo tusaalihii profesorka aan wada sugayna haddii la yidhaaho marka profesor kusoo dhawow dadkaagii baa بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وبارك على المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وحان آدي السلام يا دمان حياة عاوة كان وصل شرفتي ومرتقاعدي انت أباب الشيء كبرها يدل يرضى يضياش ويرجع إلى فقية آدي محسنتين دمان وحان سيجارة عن ربائنا نقول مهات عديد إلا إذا فارح لينا هذا كل جوجو باي أدوية إلهي بالك سوء جوجو بالك سوء جوجو تلفون ينود فيسبوك أو إلا هل كان عاوي كارث ما لا يهايو سلامتها كبعد وعائلة هاي وقت دبال الجوجا هذا البطن هذا ماشان ما إن استاجين ما كشيء هذا البطن ما البطن بقى هذا كلمة كشيء مش مركا لكن أول كلمة طبعا الشيء وعلى الأقل نحسوس الصباح ماشي نسوي marka ugu horeysa waxaa la dhaxlo waxaan hor yaalla oo naga maqan oo aan raadinayno oo meeshaan la keen oo dhibaato nagu ah hadaan Soomaali waa un hal arrin inta ka wada kulligeed ay tahay Soomaaliya waa dawlad la'aan waa dawlad burburtay waa dawlad la'aan marka dawlad la'aantaas waa dawladda ogtiisa waxaan kullinimo ku baxnay dawlad la'aanta Soomaaliya sano عز يا شرف الصومالي ما هي إلى أي دولة نمدي يسوع شد مركا قاعد وحاول مركا تحريري في الأوروبي دين الإسلام كمركا أخرس الآن مطلوب فهمي سيا أفسر لك تسير أنا أفسر مركا الدين ده حتى فهم جيد أنا وآخرنا في العلاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة العماء أنا قلت عايز مركز في الدنيا حسنة تملك محاور في السرعة ولقد بحوك في السرعة بحوك في السرعة يا لا بارئ أو في السرعة لا أتعشى أيضا في جعل أو بارئ أخوان في السرعة قرف في عنا أو واسع صور ما في السرعة وحاسة هذا نحتاس في عنا جوج الميس قروا يا سنة مجرايو حدان دولة أمنية إلى ذلك marka waxaa soo baxday في الدنيا حسنة إن تجود كبر دولة في عمر halka waxaad ku joogtiin dawlad fiican sikala uma joogteen marka ragga iyo dumarkii isjeclaa waa kala carreeso ma adduunyada kala aadin yaa kala eriya dawladda ma kala raacdays waalidkii carruurtiina ruuxu guru lahaa gurigiisa ay jabsan marka waxaa rabaa في الدنيا حسنة marka ka hadlayno ducaysanayno horta gabadh ilaahu dawlad sax oo good governance waxa la yiraahdo system fiican ee dawladnimo
واي هرتا وحيابها نجم مقال أو مرتبات الدين تقولوا فسروا وحيابها كلا توصل مكان الإسلام كآخرنا on dowladnimada baadi goobayna aan hayno waxaa kamid ah on meelo badan ka sheeg oo culimada in badan oo kamid ah markay fasirayaan taas marna ay u fasirin laakiin marka culimada mutaxassisiinta aan weydiiyo waxay wallahi waa run xaajada aayadan hadda kor ma fahminayna waxaa kamid ah aayada quraanka oo dhahaysa a'uudu billahi minash shaitaanir rajiim thumma awrafna kitaaba alladhiina istafayna min cibaadina aayada soo sheegaysa waxaan dhaxalsiinay kitaabka وماذا عن دوراني أنك أيا كتاب الحرسي فمنهم أقول لك ظالم لنفسه كل واحد كجرا كتاب الحرسي كل نفسي ظلم يا كجرا وعندي ظلم يا الله روح صلاة دكان سكرت البلدية سوق يسكجرا لكن مسلم ومنهم مقتصد روح أصلا بدنا وحاول يوروح صلاة زادوا كذا لكن عن كبدينه نفسي سكفرة ومنهم سابق بالخيرات وروح ضدك وأديك شيخ استغرب به ساقط سكولة الصمية وأنا كشقي ضدك مصلحية أو نفسي سوحك محسن أمد وأديك بعد سمع ضدك بقى مسلمين تابع حلوقي مش عارف غيبني ظالم للنفس مقتصد حاضر ونفسي سكفرة هي سابق بالخيرات استحداث اللي قيبي وحان مركب مرنا بالله قيبي ها وران لي وداد لو ما قيبي فرق ايه دمرنا لو ما قيبي إلهي اكتسب حاجه دمر بعد كما سمينا يصيح عاجل ان اكرمكم بالله اتقاكم عليه فرق ايه دمر لو ما قيبي هاي وداد وران لو ما قيبي marka maxaa loo qaybsan dhamaan kula isku daro marka maxay yihiin aayadaas quraanka waxay sheegay hada dadka bandiga dhaxaaya muwaadiniintu waxay u sameeyeen yihiin xuquuqda iyo waajibaadka soo band dastuuriya ma waa halkan ku qoran dastuurka dadkan waa ku qoran tahay hay'adda dalkeena ku qoran dadku waxay sameeyeen waxay u sameeyeen xuquuqda iyo waajibaadka u sameeyeen القرآن كان متوقع شراكات حرنتاس ضدكو ولا مواطنين واي أم بقى هاو صرت سكر البلدية أم بروح إلى هاي عبودة هاو أم بسكر هاو أنت بعد مسلم تاعي مواطن ذاك كان كتسن أطاعي إلى هاي تطلق أو ضغط كوجر تاعي أوه لقى يا مستقبل كأنه في عنابه بد ما أنت في عنابه ملاينا على إنه ملاين عكر كي ما أنت بد ما نقول ملاينا على ما أنت أنا إنه بروح في عنابه عكر لكن لما مرة النقطة إنه مش هبلا ما أنت في عنه هبلا ما أنت أديك بيرك مش هاخد مايس أنا على بعض آيات ما كان كهذا لنا مركب وحين هري أولاد دولة صومالية دولة أسبكة هذا يحكي لنا قاعد الملك هنا روحي حمر كبح حمر تكو قال يرد واحد تقاعد لازم حمرتي لكن روحي مقتصد كبحوا أفكو هذه دولة جست هذا بلعد آد دولة مكتجي ما تجلس دولة وحارب أنا بال اسمه شيء أو أنا اسمه شاكي صوبت أنا دولة كيل لا معي شنت إلى بعد كسر صوب عفج دولة دي لأفلو يجرتها بعد ما أصلا ما لان دولة نجتر نقص وأنا قاعد يعني أخذت منها هذه طريقة الآدرة ترتيب الله صعب هلا بقول ما إحنا لو سيف دولة لو تجري شو لكن وده ده بالله قادم لو تجري وده ممكن دولة نبدأ أن جاري حاكمنا أو وده دولة بقى أنا هين يونت اللي راح بحضار هاي هبلنا دولة ما كم تبغى تعرف تعرف هبل يوم إسلا دخل إلا إن كرامها إلا أعصمها إذا ما كشلا جماعها واجرا قبيل واجرا لكن قبيل ما دخل ويونت بوش إلا احترامه اللي بهني ديجان كيسة يتأخر كيسة يقعد يعيش الاحترام طبعا لكن دولة يا قبيل اسمها دولة يسلي دولة واحد اسمه قبيل يجي موادن مركب موادن روح كاستوى روح كمان سميها موادن كاس هي دولة اسمه إذا أنا كم حارم أنا قبيل كقبيل دولة ما كان الله هاي جيل يلا مسخرة كلا نوع هو يا ما كنت حارب أنا أحب أسلف فهم وده على الحين حرار هبل
دولة ما عليك كرام دولة واحد عليك كرام مواطنين وصمت حقوق واجباتك أيها الدولة سمعيها وعد صوما وعد صوما marka saasa waxaan uga baxnaa wadada marka dawladda si kale hadaan u dhigo dawladda Soomaaliya marka sameeyay dawladda waxay faragelisay qabiilka geerada penetration way soo xad gudubto oo qabiilkii wax iska lahaa deegaanka iyo dadka iyo dhaqanka ayaa dawladda ku soo xad gudubto xad gudub ku sameysay ilaa ay tirwa aasaya magacoodan cadda mar la sheeg marka xad gudub ma aha qabiilkina زونك اللي قالوا انت بس ورا الدولة سوف يركب يا سكر